qada sharaftan hannaankeyga dhicitaan sida heerka sare ah loo soo agaasimay ee ka qabsoontay VIP-da hoteelka Rays ee Boorama ayaa ahayd mid u reebanayd ka mid noqoshaha ururka samafalka Anfac Foundation abwaan fanaanad Safiya Tusmo iyo qurbajoog Ruqiyo Suldaan Cabdi oo ka mid noqonay ururka samafalka Anfac Foundation munaasabadan joog ahaayeen badiba mas'uuliyiinta ugu sarreeya ururka samafalka Anfac Foundation ayaa waxa kala soo qayb galay duqa Boorama Suleymaan Xasan Xadi xildhibaan Cabdi Cismaan Dhagaweyne oo ka tirsan aqalka deegaanka Boorama qada sharafta kadib hadalla kala duwan oo goobtaasi laga soo jeediyay ugu horreyn waxa goobtaasi ka hadashay hadalkana furtay gudoomiyaha ururka samafalka Anfac Foundation samafalahinta Caddo Shaare iyo xogayaha guud ee ururkaas Muxyidiin Raad Shabeel ku hadlaya afka magaca ururka samafalka Anfac Foundation waxaa maanta sharaf noo ah qada sharaftaanu ku maamuusnay walaalahayo Safiya iyo Ruqiya oo iyagu door biday maadaama ay qurbo joog yihiin xubno aad u muhiim ah oo codkoodu meel dheer gaadhayna ay yihiin inay ka qayb noqdaan ururka Anfac qaybtoodii qurbaha waxaan leenahay ku soo dhawaado walaalo ilaahay wax khayr qabanaad kala soo kulansiiyo aad iyo aad baad ku soo dhaweynina waxa kale oo nagala soo qayb galay maanta maayirkii iyo xildhibaan Cabdi Cismaan Dhagaweyne waxa jooga xoghayihii dhammaan ururka Anfac Foundation haweenkiisa aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay hablahana ku soo dhawaada aad iyo aad baad kaga mahad celinayaa sida aad nooga ajiibteen codsigayagii waan ku soo dhaweynaynaa mar hore iyo mar dambaba waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaynaa Safiya iyo Ruqiya oo ka mid noqday inay ururka Anfac Foundation oo aan rajaynaynaa insha Allah inay naga kaafiyi doonaan tabarucaadkii aan awalba ka suganay dalka dibadiisa waxaan leeyahay walaal gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada insha Allah in waxayna dhaxmari doona walaalnimo iyo kalgacal aad u ballaaran annaguna waxaanu markii hore u taagnayn hiiliyo hoobaanu u taagnayn inaanu dadka walaalaheena tabaalaysanano xoogayga ku caawino mar haddaan nagu soo biirteen insha Allah waxaan noo tahay farxad waxaanu idin leenahay ka urur ahaan soo dhawaada dhankooga iyaguna hadalka waxa iska daba qaatay isla mar ahaantaana mahadnaq ballaaran u jeediyay maamulka iyo mas'uuliyiinta ururka samafalka Anfac Foundation fanaanada abwaan Safiya Tusmo iyo Sheekh Saciid oo kamid ah haldoorka haweenka gobolka Awdal ururkan maxaan ku radaa samafalka Anfac ee maanta nacasumay waan idin mahad celinaynaa ilaahay ajir iyo xasanaad ha idinka siiyo umuraha badanad hore u soo qabateen annagana intaad noo dhiibteen Allah nagu asturo baan leeyahay ilaahayna ha nagu asturo Anfac Foundation iyo umurtiisa waanu soo dadaalaynaa anigu dad badan baan la shaqeeyay oo ma aragtay daafaha ma inta Soomaalidu degto oo dhan meel kasto Soomaali degto ceel laga qodayo isbitaal laga dhisayo maxaan ku dhahdaa iskuul laga dhisayo agoon wax loo qabanayo anigu waan u taaganahay halkana waxa weeyaan waaba gurigeygii weeyaan oo wan baan ka ahay tuu kama ahi Ruqiya walaashay aniga Allah nagu asturo ayaanu leenahay aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waad mahadsantihiin intiinii horena waxaan leeyahay safar salaama nabad Allah nagu geeyo intiina cusubna waxaan leeyahay barasho wanaagsan waxaan halkan uga mahadnaqayaa ururka taakulaynta yar dadka tamarta yar oo dadaalaha oo halgamaha ururka Anfac Foundation aasaasan gobolka Awdal oo leeyahay Anfac aad iyo aad baad noo anfacday annaga iyo danyartaba waxaan halkan ku soo dhaweynayaa oo ka mid ahashahooda kaalin muhiima oo awalba muhiim bay bulshada u ahaayeen u noqon doona laba xubnood oo qaali ah waa Safiya iyo Ruqiya oo leeyahay ku soo dhawaada ururka iyo ururkan leeyahay de waxa weeyaan dhiig cusub baad ku shubteen ururkiisa insha Allah kiisi living laabma ee ummadda anfaca ee dhaafa gobolka ee noqda national ayaan ilaahay ka rajaynayaa subxaanahu wa ta'ala gabagabadii waxa hadalka soo afmeeray isla mar ahaantaana dardaaranno kala duwan u jeediyay duqa Boorama Suleymaan Xasan Xadi oo ku amaanay ururka samafalka Anfac Foundation shaqada uu hayso danyartii agoonta ku dhaqan Boorama isagoo sidoo kalena ku booriyay inay ka qayb qaataan wax kasta oo horumar u soo kordhay gobolkani Awdal farxad bay tahay inaad kala soo qayb galo kulli waxaan u maleynayaa soo dhaweynta iyo casuumadaha aad la yeelateen iyo ciyaaro qurux badan oo daawada runtii waa idinka maqnaa laakiin maanta idin la joogaayo hadhay mashaarifaad aan idin la cunayaa sharaf baan ay tahay waxaanan ka xumahay inaad kala soo qayb galay waa ciyaartii ka dhacday xaafadda Faaraxiyo oo habeenka TV-yadan ka daawaday habla aad u qurux badan ciyaaraya runtii farxad uun bay ahayd soo jiidanaysay ama kalgacal loo qabo Safiya iyo intii kale la socotay waa qof lagu faani karo runtii oo hal abuur leh
oo midhaheega ama waxyaabaha fikradaha quruxda badan leh maskaxdeeda ka soo meexanaya aynu in badan daawanay anigu kulley hadalka ku dardaarmaya mar labaad iyo mar saddexaadba farxad bay ii tahay nimca sii naxnaaxi doonto kulley dee meelaha tiifiyada soo fadhido oo hadalka iibisa laakiin anigu kol haddaan dawladaha hoose joogo inta yaree aan odhanaya waxa weeye weliba maanta kaga faa'iidaysanaya jaaniska wax kasta oo la qurxinayo wax ka dhex muuqda waa haween ee qurxiya xataa haddii gurigan maanta la sharxayo la sharaxayo waxa la odhanaya hablaha loo diro rag loo diro ma xoogu doona ha lahaado caqliga wanaagsan idinkoodii ka imanaya quruxda jecel waad naga aragtay duwantiin waxaan jecelnahay maanta degmada Boorama gaar ahaan gobolka markaan idhaahno waxa u soo socda horumarkii ugu weynaa si kastaba ahaatee ururka samafalka anfac foundation ayaa isagu ka mid ah ururada sida aadka ah ugu shaqeeya danyarta iyo agoonta ay hayntoodu yar tahay kaas oo si gaar ah isha ugu haya hadba ciddii xaaladeedu liidato